maalinnimadii shalay oo Isniin ahayd ayaa garoonka caalamiga ah ee Gardermoen ee magaalada Oslo waxaa ku yimid hakad xoogan oo dhanka boorsooyinka ah kadib markii hakad qaatay in ka badan hal saac iyo bar uu ku yimid nidaamka boorsooyinka dadka dhoofaya iyo kuwa imaanayo. Arrintan ayay sheegtay agaasinka maamulka Avinor oo ah shirkadda maamusha garoonka diyaaradaha Gardermoen, Monica Fastigeta, oo sheegtay in ilaa iyo hadda aysan fahmin habka iyo sida ay ku timid ciladan iyo sababta keentay. Waxa ayna intaa ku dartay in nidaamka uu hakad kalo in ka badan hal saac iyo bar ay tahay wax aad u badan oo aan suurtagal ahayn, haddana ay dhacday. Nidaamka boorsooyinka oo aad muhiim uga ah garoomada caalamiga ah marka ay diyaaraddu timaado si rakaabka aysan waqti badan uga lumin oo ay tahay in boorsooyinkooda waqti kooban ay ku helaan. Sida caadiga ah ayaana lagu yiqiinay in aysan ka badan wax ka yar daqiiqado ama ugu badnaan nus saac. Ha yeeshee nidaamka ayaa waxa uu qaatay in ka badan saacad iyo bar, taa oo fajiciso iyo layaab ku noqotay dad badan oo rakaab ahaa. Garoonka Gardermoen ayaa subaxnimadii Isniinta waxa uu ahaa mid saxmad badan oo diyaarado badan oo xilligaa yimid ay ku adkaatay rakaabkii ka soo degay in ay boorsooyinkooda si degdeg ku helaan. Waxa ayna ku qaadatay saacado in ay helaan boorsooyinkooda, taa oo sababtay in garoonka caalamiga ah ee Gardermoen uu noqdo mid aad u saxmad badan oo ay dadku aad u buuxaan. Tirada ugu badan rakaabka ay arrintan ku dhacday ayaa la sheegay in ay ahaayeen kuwa ay keentay diyaaradda Norwegian Airways, taa oo isaga kala gooshto guud ahaan dunida iyo sidoo kale gudaha dalka Norway. Halka ay wararka ugu doorkaroon idinkaga imaanayeen waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway. Waxaana idinla socodsiinaya aniga oo Cabdullaahi Shiine.